kulankan oo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ay la yeesheen xubno ka socday degmooyinka Shibis wadajir degmada Waabari iyo degmada Xamarweyn ee gobolka Banaadir ayaa waxa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa wacyigelinta arrimaha nadaafadda iyo howlaha nadaafadeed ee lagu soo celinayo bilicda caasimadda magaalada Muqdisho iyo sidii gudoomiye waaxeedyada iyo bulshada Soomaaliyeed ay ula shaqeyn lahaayeen shirkadda nadaafadda ee Eco ee ka shaqeysa gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kusimaha gudoomiyaha degmada Xamarweyn ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Iidow ayaa ka warbixiyay howlaha nadaafadda ee degmada Xamarweyn dadkani meesha fadhiyo iyo in badan oo naga maqan sida hadda arkayso u badan haweenka wadadka horta ka shaqeeyo qaybaha guud ee degmada gaar ahaan nadaafadda dadkani waa dad soo shaqeeyay 30 sano ugu dambeysay gaar ahaan muddooyinka annaga aan shaqeeynay waa dad maaragtay u shaqeeyo si hagar la'aan ah gudoomiyaha shirkadda nadaafadda ee Eco Cabdikariin Yuusuf Xasan ayaa ka hadlay howlaha shirkadda ay u hayso bulshada Soomaaliyeed waxaan u nimideen wixii naga khaldamay in saxno si ay bulshaduna u hesho nadaafad buuxda shirkadduna khidmadii ay nadaafadda ku qaban lahayd ay u hesho waxaan doonayaa inta aan ku daro waxa kullayba wax walba sidii loogu talagalay marka koowaad ma noqdaan dadaal baa la soo sameeyay dadaalkii la soo sameeyay baan isleenahay halaga sii meesha halaga sii wado hal sii wanaajiyo agaasimaha waaxda nadaafadda maamulka gobolka Banaadir Cabdi Casiis Goodax Barre ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu xoog saarayo sidii loo dardargelin lahaa howlaha nadaafadda ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti ayaa kula dardaarantay dadkii ka soo qayb galay kulanka in ay ka shaqeeyaan arrimaha nadaafadda isla markaana ay la shaqeeyaan shirkadda nadaafadda ee Eco ee ka shaqeysa gobolka Banaadir shalay waxaan isku sheegnay in hoosha degmada qaban karo gudoomiye laameedka wuxuu mas'uul ka yahay konton guri oo mas'uulka ku yahay oo ka yahay inuu u adeegi karo asaga ogaan kara baahida ka jirto shirkadda Eco ma shaqeysay mise ma shaqeynay waxa sheegi kara gudoomiye laameedka waay Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho